maalin Arbaca 8 bisha Febraayo 2017 waxay ahayd maalin ummadda Soomaaliyeed waa cusub u bariyay maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub kadib markii uu xilka madaxweynaha ku guuleystay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa jawigii waxa uu isu bedelay sidan waxaa caan baxday kelmadda Farmaajo iigeeya adduunweynaha ayaa hal mar soo jaleecay Soomaaliya waxaana ka faallooday idaacado iyo TV caalami ah. A man nicknamed Cheese wins Somalia's presidency, sparking massive celebrations in the capital Mogadishu. Former Prime Minister Mohamed Abdullahi Mohamed farmaajo inuu ku guuleysay banooni ku dheelaa kooxda kale oo farmaajo xilka qaadaan farmaajo hadala madaxweyne waa kugu haweynay adduunku ma waxa uu yaqaanay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidaas awgeed ayaa looga falanqoonayay Soomaaliya waa maya adduunyadu waxay soo fiirisay Soomaaliya oo ka midaysan taageerada dawladeeda taas micnaheedu waxay tahay shakhsi wax kaama dhigi karo laakiin adiga ayaa wax noqon kara doorashadii kadib maalintii calaamasaarka madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday inuu soo celin doono sharafkii Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo ciisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo ma ka dhabeeyay ballanqaadkii balandibu jaleecno tallaabooyinkii ugu horeeyay halka uu ka bilaabay isla markiiba waxa filla Soomaaliya ka huleelay Gabre oo ahaa safiirka aan cidina magacaabin ee Itoobiya u fadhiyo filla Soomaaliya shacabka Soomaaliyeedna ku ahaa wadna xanuun sidoo kale waxa uu la kulmay ciidanka AMISOM kuna amray in labada sano ee ugu horeeya lagu soo afjaro al-shabaab. My vision is to defeat al-Shabaab within the next 2 years. Hopefully if we work together very closely we will be able to defeat al-Shabaab. laba isbuuc doorashadii kadib 23 bishii Febraayo waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay mudane Xasan Cali Khayre oo uu sheegay inuu yahay shakhsi ay wada shaqayn karaan kana soo shaqeeyay arrimaha bini'aadanimada walow Soomaalidu aysan aqoon hore u lahayn hase ahaatee muddadii halka sano ahayd waxa uu muujiyay dadaal dheeraad ah daacadnimo karti iyo hufnaan waxaana bulshada Soomaaliyeed aad u soo jiitay khilaaf la'aanta iyo wada shaqaynta dhow ee ka dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isla 23 bishii Febraayo madaxweynuhu waxa uu safarkiisii ugu horeeyay ka bilaabay xaramka barakaysan si uu dalka ugu soo duceeyo waxaana loo jeeday isaga oo gacmaha sare u taagaya isla markaana quraanka soo akhrinaya masjidka barakaysan madaxweyne Farmaajo safarkii labaad waxa uu ku tagay dalka Kenya waxaana uu kala hadlay Kenya in la qaado isbaaradii Soomaalida u taalay magaalada Wajeer ee lagu dhibaateyn jiray dadka u safraya Nairobi
taana waxaa laga gaaray guulihii ugu horreeyay ee dowladani ay hanatay. safaradii kale ee madaxweynaha waxaa ka mid ahaa dalalka islaamka sida Masar, Suudaan, Qatar, Imaaraadka iyo dowladda Turkiga oo uu kala hadlay sidii Soomaaliya ay uga caawin lahayd taakulaynta ciidanka, waxaana guusha laga gaaray wadahadalkaasi ka mid ahaa in Turkigu uu xaruntii ugu weyneed ka furo magaalada Muqdisho, taasi oo lagu tababarayo ciidan Soomaaliyeed. dufcaddii ugu horeysayna waa ay ka qalin jabisay. guulihii ugu waaweynaa ee dawladdu ay gaadhay muddadii halka sano ahayd haddaan soo koobo waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana taa cadaysay hay'adda IMF ee kormeerta lacagaha adduunka, joogtaynta bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dawladda iyadoo loo bixiyo hab casriyaysan oo qof kasta mushaarkiisa loogu diro akoonkiisa, hirgelinta dhismaha ciidan qaran oo bedela AMISOM iyadoona qaybtii ugu horeysay ee AMISOM ay dalka isaga bixeen dhamaadkii sanadkii tagay, inta kalena la qorsheynayo inay ka baxaan sanadkan gudihiisa. la soo wareegida hawada Soomaaliya oo laga xukumi jiray Kenya muddo 27 sano ka badan, shaqaynta garoonka diyaaradaha aadan cadde xilli habeen ah oo ay diyaaraduhu ka soo deganayaan, soo deynta maxaabiis dalka dibadiisa ah sida maxaabiistii ku xirnayd Ethiopia, Seychelles, Hindiya iyo kuwa kale oo la sugayo in la soo daayo bishan dhamaadkeeda. isla xisaabtan dhab ah taasi oo keentay in maanta Soomaaliya gacanteeda lagu aamino lacag dhan 300 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo ay ku deeqday dawladda Mareykanka halka markii hore gacanta loogu hayn jiray dhaqaalaha ku baxa Soomaaliya. waxaana dawladdu ay hufnaantaasi ku kasbatay in markii ugu horeysay ay hay'adda UN hambalyo uga timaado, joojinta faragelinta shisheeye, wanaajinta xiriirka arrimaha dibadda, soo celinta qabkii iyo sharafkii Soomaalida. taasna waxaa cadayn u ah diidistii ga'doomintii Qatar ay ga'doomiyeen wadamada Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabtu, taasi oo dawladda Soomaaliya ay ka soo horjeesatay isla markaana ay diiday laaluushkii loo soo bandhigay. waxaana ay Soomaaliya ku kasbatay sharaf ay caalamka kaga dhex muuqato. sidoo kale waxyaabaha ay sharafta caalamka ku kasbatay Soomaaliya waxaa ka mid ah dhexdhexaadintii dawladda South Sudan iyo mucaaradka iyo weliba ka soo horjeesashadii go'aankii dawladda Mareykanka ay ugu aqoonsatay Qudus caasimadda Yuhuudda. waxyaabaha kale ee aan adduunka kaga dhex muuqanay muddadaasi halka sano ah waxaa ka mid ah in aan ka qayb galno shirar caalami ah oo aysan Soomaaliya ka soo muuqan muddo ku siman 30 sano. waxaana ka mid ah shirkii wadamada dhaqaalaha adduunka ee uu ka qayb galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre toddobaadyo ka hor. xafinta inta badan deymihii lagu lahaa Soomaaliya iyadoo IMF ay ballan qaaday in Soomaaliya ay hadda xaq u leedahay in la siiyo deeqo dheeraada. dardargelinta doorashada 2021 si loo gaaro qof iyo codkii iyada oo taa la fulinayana waxaa la sameeyay diiwaangelinta xisbiyo ku meel gaara, mashaariico laga fulinayo dalka iyo kobaca dhaqaalaha iyadoo xilligii uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kala wareegayay xilka Cumar Cabdirashiid uu xaqiijiyay in akoonka dawladdu uu maran yahay, halka maanta iyadoo mushaarkii la bixiyay ay weli ku jirto akoonka dawladda lacag dhan 30 milyan. waxyaabaha kale ee dawladani ay ku amaanan tahay waxaa ka mid ah ilaalinta ama dhowridda dhaqaalaha iyada oo la baajiyo xafladaha aan munaasibka ahayn isla markaana dhaqaalaha ku baxaya lagu bedelo in dadka masaakiinta wax loogu qabto. xafladaha la baajiyay waxaa ka mid ah xilligii doorashadii madaxweynaha in madaxweynuhu uu codsaday xafladaha waaweyn dhaqaalaha ku baxaya in lagu taageero dadkii markaasi ay abaaruhu haysteen. sidoo kale xafladaha la baajiyay waxaa ka mid ah munaasabad weyn oo la qorsheynayay in loogu dabaaldego 8 February oo ah sanad guuradii
koobaad ee kasoo wareegatay dowladan haatan jirta. sidoo kale madaxda dalku waxa ay baajiyaan dhaqaalaha ku bixi lahaa safarada faraha badan, khaasatan ma raacaan diyaaradaha khaaska ah, balse waxa ay la safraan shacabkooda oo ay diyaaradaha la raacaan. safarkii nabadda ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa mid isu soo dumay qulubta shacabka Soomaaliyeed ee danleydu ay xumaanta ku afuufeen. safarkaasi oo qaatay muddo 17 beri ah waxa uu isugu jiray nabadayn iyo mashaariic horumarineed. goobaha madaxweynuhu dhagax dhigay ama uu xariga ka jaray waxa kamid ahaa airportka Garowe oo uu xariga ka jaray, fiber optiga shirkadda Golis ee magaalada Boosaaso oo sidoo kale uu xariga ka jaray. sidoo kale waxa uu dhagax dhigay wadooyin ay ka mid yihiin wadada isku xirta Ayl iyo Dangarayo, wadada isku xirta Ceel Daahir iyo Ceerigaabo, wadada isku xirta Kalabayr iyo Calula, iyo wadada Gaalkacyo iyo Hobyo, dekeda Hobyo, cisbitaallo iyo waliba sidoo kale iskuulo farsamo oo loo furayo danyarta iyo agoomaha. waxaana durba la bilaabay fulinta qaar kamida mashaariicahaasi iyada oo isbuucan horaantiisii magaalada Hobyo loo diray kambani dhismo oo laga leeyahay dalka China. dhanka kale safarka madaxweynuhu waxa uu ahaa safar nabadayn, waxaana jiray tashuush fara badan oo madaxweynaha lagu furay intii uu ku guda jiray safarkiisa, wuxuuna uga imaanayay tashuushkaasi beesha caalamka iyo qaar kale oo naarafuufa. waxaa kamid ahaa tashuushkaasi dhulka ma mari kartid, dhulku ammaan ma aha, diyaarad qaado Amsom kulama socoto iyo wixii la mid ah. laakiin waa uu ku gacan sayray madaxweynuhu isaga oo kalsooni buuxda ku qaba ciidanka Soomaaliya. waxa uu ka shaqeeyay heshiisiintii Galmudug oo laba u kala qaybsanay isla markaana kala deganeyd labada magaalo ee Cadaado iyo Dhuusamareeb. waxa uu isku furay Caabud Waaq oo kala xirneyd ama laba u kala qaybsanayd. sidoo kale waxa uu isku furay magaalada Gaalkacyo oo iyaduna kala qaybsanayd. waxaana rajabeel uu ku dhacay beeshii caalamka oo goobjoog ka ahayd heshiiskii Galmudug, waayo waxa ay quudareynayeen isku dhaca dad Soomaaliyeed oo ay ka dhex faa'iideystaan isla markaana ay mashruucyo ka dhex furtaan. laakiin arintaasi waxa soo afjaray madaxweyne Farmaajo. naanaysta magaca Farmaajo haddii la fasiro waxa ay noqonaysaa burcad. Soomaaliduna waxa ay ku ducaystaan Ilaahayow bogeena burcad isu mari. amiin amiin amiin. muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxa uu awood u leeyahay waajibna ku ah inuu taageero dawladnimada, adduunkana inuu tuso in aan wax noqon karno. ogow markasta muhiimadu maaha shakhsiga xilka haya, laakiin waa shacabka.